سيدي حمانا هلا حسن لايف بارنا وسوق الشيء وهذا ولا سعتها يسوي طول مساجك يسوي اي وين يوصل الفنان اي ولا حسب الفنان وصل لي اي ما كسرت ما هو ما هي لايف laysku gacansayra hadday talagu racanto igu dido xaaja garan waydo oo labada geesood murtida laysku gacansayro karmaqaate abaal gudinayay talahu gaysteene isaga kilkilo dhibkii sii ku haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni karmaqaate abaal gudinayay talahu gaysteene isaga kilkilo dhibkii sii ku haadinaya godobtiyo colaadaha ninka galaya loo dayni ummadeena ninka kala gureegabayaan loo daynin hilbahooda ninka gadi jireegabayaan loo daynin gumaysiga ninka nagu haye gabayaan loo dayni ummadeena ninka kala gureegabayaan loo daynin hilbahooda ninka gadi jireegabayaan loo daynin gumaysiga ninka nagu haye gabayaan loo daynin kaajada ninka nagu dile weliga sindheeri hooyada ninka garifaye gabayaan loo daynin kaajada ninka nagu dile weliga sindheerin hooyada ninka garifaye gabayaan loo daynin gacalkan iswada gowrace isku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yahay galbane ninka kala gure gabayaan loo daynin gacalkan iswada gowrace isku garaabaynin geerida ragga doorbide kumuxuu wada leefay yahay galbane ninka kala gure gabayaan loo daynin gayigeenu waagu dageen gooni isku taagnay engogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsa xasuulistee
boqna hawada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo gayigeena waagu dadeen gooni isku taagnay gogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay dhurwaagii gawsaxa soo listee boqna hawada gooyay shawaynta ninka geeri baday sow la garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocantadii keenay dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow la garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay guri walba geesiyo gobana laga dooxay xalaqii gashiga daaqaye gocantadii keenay dadkiisii kala gaasire gacal isweydaartay gayiga xoolaaduu ku furay sow la garan maayo inuu gablanka dhigay gaaridiisow 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 la garan maayo حسن لقمة مقليو ميتك اسكسار ميتك حسنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحال هل كان نقدر هنا برنامج جيبوتي توس أنا جو حسن دالية داودها داونية إنترنت داود وحنا كسر هذا برنامج جيبوتي توس سوي قادها أي عدد كأسوت بنين يشغلها كهون قلا جيبوتي توس وحكلوا أن عاو حنبلي قدرة عدد كأريب جيبوتي قرب جوكتا إيو قل جوكتا وحنا هي كسر هذا برنامج جيبوتي توس دمان وحنا هي مسلمين تا كحنو سنة دلالك دبديسة يجودها وحنا هي لها عافية دمان خاصة وحنا عن قدرة دمبال عدد كأريب جيبوتي جوكتا قربها يجودها جوكتا وحنا هي دمانتي كسر هذا برنامج جيبوتي توس waxaad kala soconaysiin barta facebooka gadaalna waxaad ka daawan doontiin barta facebook youtube-ka waxa kaloo caawa ay barbar fadhiya oo kulliba muwaadiniin aad iyo aad dadka ula wadaaga barnaamijyo aad iyo aad u wanaagsan uu ugu horeeyo Cumar Ibrahim oo u wada taqaaniin maad aragtay baraha bulshadana mar waliba ka howlgala oo dadkiisa la jecel wax wanaagsan hadday tahay geedkeena Afrika markaas waxaan leeyahay kulli barnaamijka waa toos waxa kale oo barbar fadhiya Cabdalla Cabdo oo wada taqaaniin oo baraha bulshada sana ka hawlgala oo u taqaaniin isagana dhinaca ku xil dheer dhaqaalaha oo weligiiba uu ahaa nin reer Djibouti oo jecel ummadda reer Djibouti inay ka baxaan ciilka iyo carada ay ku jiraan iyo dhibaatada ku habsatay waxa kale oo aan sheegayaa oo doonaya inaan bulshada la wadaago kulliba maanta waa maalin salaasaa 2022ka Djibouti toosna uu ka baxayo codadkaasi waxa horta ku soo dhaweynayaa marka uu horeysa Haji Ibrahim ba ku dhaweynaya Cumar Ibrahim horta ku soo dhawow Djibouti toos iyo bal ummadaada waxa la wadaagaysid iyo salaataadu sidii ummadaada 2022ka sanadka cusub بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بعضهم هتسنتاي حسن دالي إيه بعدا جيبوتي توس يو إنا كينا قالقا عبد الله عبدو دمانتين وسلامتين ددوينها نتعاونا يا إضافة دون كنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بانو سلامة يا وعن قالوا قدر سنة يا
sanadka cusub waa intii aan kulankii ugu horreeyeen kulannay dhammaan daafaha adduunka ilaahay sanad isbeddel deegaanadeenna ka dhaco nabadgelyana aan helo ayaan iyagana ilaahay u baryayaa aadna u mahadsantihiin Jabuuti Toos thank you waan soo dhawaa aad baa u mahadsantahay Cumar Ibraahim oo kaaga mahad celinayaa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hooyo oo aad u qaaliya naga tagtay oo dhashay Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo dhashay oo yaa ku geeriyootay dalka dibadiisa oo khaasatan magaaladii Afrika waxaan leenahay kulliba sheekhaasi iyo geerida nagu dhacday waa geeri nagu wada dhacday waxaan leenahay ilaahay kitaabkii iyo madaragtay jannada ilaahay ha geeyo kitaabkeena midibta ilaahay uga dhiibo waxaan leenahay kulliba anagu waan la wadaagaynaa muriyada iyo geerida ku dhacday Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir isagana waxaan leenahay dhambaal aan uga dareyno Jabuuti Toos oo leenahay kulliba geerida waan kula qabnaa hooyada dhimatayna way naga wada dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kulliba waxaan wada sugayaa qof walla oo muwaadina ama qof kasto adduunka ku nool gaal iyo sidaanba kulli waa la dhimanaya Cabdulla Cabdooba jooga isagana oo barbar fadhiya Cumar Ibraahim Cabdulla kulliba adigana waa lagaaga bartay wax wanaagsan waxa tahay muwaadin aduna reer Djibouti oo ummad reer Djibouti ay jeceshahay hadaladiisana uu yahay hadalla cadcad bal Cabdulla ku soo dhawow iyo caawi iyo 2022 السلام عليكم حسنو وانكو سلامي حاج عمر ولالكينا وان سلامي حاج عمر ما انت اسمه برني دقال كيو سنتان كو جرني هوران اسكو سو نقاني حاج عمر وانكو سلامي امدا ري جيبوتي مقارنيسا دولمي لوغايانا وان سلامي iyo umada ku xiran mataqaana Djibouti Toos iyo teknishanada iyo waxaan aad u salaamaya walaalkay ayaan la xaji Ismaaciil waana soo salaamaya aad baa u mahadsantihiin kulliba barnaamijku waa toos bulshadana daawanaysa waxaan jecelahay mar waliba hadallada ma aragtay ku hadlayno ama dadkayga waxaan u tabinayno inay noqoto wax wanaagsan ay dadku ka faa'iideystaan bulshaduna ay ku farxdo ayaan jecelahay waxa aan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa Cumar Ibraahim oo leeyahay maadaama uu tahay qof aad iyo aad baraha bulshada habeen iyo dharaan ugu jira bulshada oo kallayba ka hadla dalka Ethiopia iyo Djibouti Soomaaliya meel waliba ka hadla oo dadkana la jecel wax wanaagsan Cumar waxaan ku weydiinayaa kulliba dalka maxaa ku radaa Ethiopia oo khaasatan gobolada maaragtay city iyo gobolada maaragtay ay degaan dadka aad dhibaatada ugu dhacday waxa jira waxyaabo imka la ii soo sheegay qoraal iyo telefoon la ii soo diray xagga muciishadii iyo xaggi biyaha oo doonigii biyaha muhiimkii ugu sareeyay amba waxa ugu muhiimsan ee dadku ay ugu horeeyay in la siiyo waa xagga biyaha iyo dooniga waxaan ogahay inay dhulalkaasi amba maaragtay degmooyinkaasi inay ka liitaan xagga caafimaadka iyo xagga biyaha maxaa ugu wacan oo dowlad deegaanka ay biyaha ugu gaarsiin leedahay amba ceelasha loogu qodi leeyahay dadka iyo dhaqtaradan baabaa ee mar waliba la soo duubayo sababta maxaa keenay oo dadkaasi loogu talagalay in la baabi'iyo sababta maxay ku timid السلام عليكم واد ما سنت حسن ولا سعوته ها اوكي horta aniguna tacsidan diraya shalay toolana baraha bulshada ayaa live culumada daafaha adduunka ee Sheekh Bashiir asxaabtiisa ayaan tacsi iyo duco hooyo u akhrineynay aniga oo chance u helay muddo 5 sano ka hor inaan hooyada Sheekh Bashiir hooyo dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan bay hooyo wahay oo hooyadii sheekh weynaa ee reer Djibouti aniguna aan la kulmay xaafadda Marmarsa oo guri weyn uga dhisay aan nasiib u helay inaan maalin siyaarano aniga culimo badan oo soo arkay hooyo way naga wada dhimatay shalayna duco badan baan ugu ducaynay ilaahay inuu jannada firdawsa geliyo hadday Soomaaliya Somaliland Ethiopia Djibouti intaba life baa lagu wada jiro loo ducaynay de hooyo qaaliya naga geeriyootay Sheekh Bashiir iyo qaraabada yaaligiina samir iban baan leenahay iyadana jannada firdaws aan ilaahay u baryayna su'aashii baan ku noqonayaa wala socota aad baan maqlayaa waxa weeyaan dhulkaasi waa dhul dadku dawlad lagu sheego kililka Soomaalida tuulooyinka imanka gobolka city waa 9 degmo facility electrician male internet iskaba ilow biyo male
sidii asligii ciise baadiyey bay ceelal ka dhaansadaan magaalada diridhabo oo magaalo weynana magaalada maamulka biyaha xamashiba haysa elektriga xamashiba haysa waxa la wixii dawladdu adeega dawladeed xamashiba haysa xamashidooda haday guri iibsato sarreeri way waa loo fudaydiyaa laakiin Soomaalida soo noqo baa nafta laga saaraa marka dadku waa dad iska dulman maamulkan jigjigana ayaga naftooda jigjigan nafteeda sidaas si leeg oo dawladda hoosoo dhan iyo dhulka facility-ga biyaha iyo koraanka iyo wixii loo baahan yahay adeega dawladda ama xaradaba ka wada shaqaysata dhalinyaradii Soomaalida in laga shaqaylaysiyo looma ogola dhalinyaraduna waxa lagu abuse garaa leeyahay lacagta yar maxaad ka dhigaysi marka excuse me hello how naga jooji marka waan islaamaya waan ka bax abdi baan ugu wareejin aad baad ma santahay Umar Ibrahim aad baad ma santahay waan kugu soo noqon doonaa ma sha Allah waxaan u tabinayaa Cabdulla Abdo waxaan ku leeyahay kuleyba Djibouti wala socotaa dhibaatooyinka hadda toddobaadkan waqtigan imika nagu sugan laba saddex shaba waxa jiray wasiirka maaliyadda ina ma aragtay meesha laga qaaday oo dimiso uu sameeyay buuq badan oo dalka ka dhacay dhibaatadaasi Cabdulla maadaama uu tahay qof dhaqaalaha aad ugu fiican garanaya dhibto halkay ka socoto inay meeshuna ay tahay dadka malawaalka loo sameeyo iyo dhibaatada loo sameeyo dadka lagu waalayo waad ogtahay adigu inay tahay waxan inay dhaqaalaha la isku dirayo ay tahay waxaas dhibaatada ay ka timid wasiirka Sacasilay dimiso sameeyay iyo imika malawaalka la wada leeyahay lacag baa meesha jirta saaxiib baa sameeyay bal arrimahaasi dhaqaalaha maadaama adigu aad aad maaragtay adigu wanaagsan tahay dadkuna maaragtay ummadda reer Djibouti aad hagaag u taqaan dhibaatadaasi Cabdulla maxaa ugu wacan oo wasiirkaasi iyo dhibta dhacday say ku timid Cabdi oo Cabdulla bal arrintaas horta isdulta horta waxaan doonayaa horta inaan soo dhaweeyo laba inamood wadaniya iyo la noomeeyay oo mid waxa laga finance-ka Cusmaan iyo Umar Ziyaad oo laga shaqaalaha waan ka hadli doonaa horta waanad ogaatiin meeshani nidaam darra jirta sharciga dastuurka laguma socdo waxa weeyaan minister de bijego hadduu wax saxeexayo caaqo inuu la saxeexaa caaqo soo marka ninkan loo xirin waayo meesha waxa ka socotaa maaguy baa ka socda tuuga ka socotaa waayo caaqo ma ictiraafsano sharciga xeer dulkan ka shaqeeno laba qof baa saxeexi kartaa markii lacag baxayso ninka financier-ga iyo ninka CEO-ga aba ninka marka wasiirka ka ah meesha marka aan wax hore la caaqa suuq u dhex jiro meesha waa inuu caaqu la saxeexo minister bijega si uu ogaado waxa baxayo ninka loo xirin hadda waxa uu soo socdaa mataqaana walaalkiina Abdurrahman Adan Sheer ina jeelka la geeyo leeraho lacagaad haday kaliya baad saxeexday talabaad waxa weeyaan waan ognahay inuu ninkaasi waxba qaadan oo waxba xadin oo nin wadaniya uu yahay ay dibto ay ka socoto Ismaaciil Umar Geeliya reerkiisa iyo afarto adeerka u yahay xulufada iyo dalka dhacay waa dal nidaam lahayn waa hay dadkan wasaaradda lagu sheegay meesha wasaarad ma jirto waa House Negro waxay ka dhigan tahay barigii slavery-ga Mareykanka ay jirtay wuxuu oran jiray ninka madowga ka dhax shaqeeya aqalka ninka cad oran jiray hadduu buko master we are all sick ma wala bukna maanta hadduu ninku duri qabo culay ma wala bukna marka meeshan wasiir kama jiro waxa weeyaan waa House Negro waxa uu shaqeeyaan Ismaaciil Umar Geelle uu shaqeeyaan waxaan oran lahaa dadka labada wadani inay iska casilaan xilku Ismaaciil Umar Geelle u dhiibay waayo waxay ku biirin karaan bay qaban karaan ma jirto waxay ummadda reer Djibouti u qaban karaan amba cilmi iyo xirfad ay u leeyihiin inay wax ka qabtaan ma jirto anigu waxaan leeyahay dawladda labada dhalanaysa markay dhalato nin wasiir ma kala magacaabayo wayna shamada sanaaga tagto oo la eego ninku xirfadu uu leeyahay wuxuu qaban karo wuxuu soo qabtay iyo ta kale inuu ninkan etik yahay ninkan inuu wax soo geystay inuu burcadaha in la baaro weeyaan iyo aqoontu leeyahay in la xirfadu leeyahay ninka wax lagu siiyo waa ninka arkay Ismaaciil Umar Geelle meesha uu ka dhigay fuwaar fuwaar waxa weeyaan kani ka qaad kanu dib weeyaan aniga ii shaqeey weeyaan andi kala saan doonaan iga yaali marka waxaan leeyahay labada wasiir walaalaha iyo iska casila sida ninka u baan dambaysa damir yeesha haddaan meesha u tagtaan ina xulaysatiin lacag qaadatiin taas waxaan anu u arkayo waxaad ku soo biirinaysiin ma arkayo ta ugu horeysa waxaan leeyahay minister du budget handuu garanayn budgetka
iyo sida assumptionka loo sameeyo iyo sa loo maamulo iyo mataqaanaa sidii wax dadka loo gaarsiiyo haddii aad cilmigeyga xirfadeeda lahayn waxaad ku soo birinaysa ma arkayo dameer halkaas ka fadhiyo ma noqonaysaa tii shaqaday noqotay haddaad xirfadeeda aad u lahayn shaqa abuurka loo sameeyo oo weligaa kasoo qayb gelin oo werigaa meel mas-uul kasoo noqo shaqada shaqa abuurka iyo sharciga samayskiisa aad samaysa ay jirin walaalkii waxaad kusoo birinaysa ma arkayo waxaad u joogtaan inaad fahmiga tuginta meesha qaatay ee xoolaha iyo dalka ee dadka dhacay inaad u shaqaysid taana qabrigaagaad la gali ani waxay ila tahay labadiinuba waxaad tihiin dad maanta retreetka gali karaa waxaan anigu u malaynayey inaan la wakiil lahaa mataqaanaa dhalinyarba meesha ay dhigay inuu ka dhigay wasaaradaha dhalinyar inama yaro controle 25 à 35 maximum ina dhalinyar dalka lagu wareejiyo oo maamula ina cumargii lama rabataa wuxuu ka baqaa dadkaas waa dad waxbarto diploma haysta waa dad master iyo doctor haysta waa dad ethic dibadda wax ku soo barto ethic leh amba dalka wax ku bartay oo magarasa moraalkoogu iyo ethigoogu u diidayo tukada dalka lagu baabiinayo labada wadani waxaan leeyahay dalka hoosina lagu baabiin britana waa la xiriirsan ninka loo galay baan illegally cabdiraxmaan aadan sharbe noqotay waan ka xumahay inuu la soo shaqeeyay ismaaciil cumar geela aad baan uga xumahay isagoo garanaya familigani inay yihiin burcad oo garanaya uu la shaqeeyey talabaad si magaranaysa sharaf uga tegay ilaa demissioné uu u geeyay demissiogiisa waxa weeyaan reerkan baa loo shaqeeyaa ummad looma shaqeeyo ta kale waxaan doonayaa dowladda labaad hadday dhalato inay horta dadkan la magacaabay marka la mariyo inay constitutionka loo sameeyo seminar loo sameeyo maxaad awoodoodu tahay maxaad qaban kartaa maxaad dalka kusoo birin kartaa maxaad ummaddaada u qaban kartaa maba garanayaan constitutionka baarlamaanka ku dar wasaaradaha ku dar waa house negro oo reerka unba u shaqeeyaan reerka ambasador ka yeelaan ummadda reer Djibouti ma matalaan ta kale iga yaabisay warqaday soo qoreen baad arkaysay sur proposition du premier ministre kuleeya maba jiraba kaas awaduule maba jiraba marka been baa laga abuuray wax jiraba ma waa been waa laga abuuraya waaya cabdalle aad baa umahadsan tahay hadalka waan ku siinayaa waxaan ku siinayaa su-aal kale aan kugu raacinayaa su-aasha aad wadid waxa weeyaan dalka Djibouti marka wasiir laga dhigo wasiirka marka la sameeyo wasiirku waagii hore wuxuu ahaan jiray functiongiisa ama maaragtay shaqadiisa isagaa maamuli jiray nidaamka wuxuu shaqo qorayo wuxuu shaqada ka bedelayo wuxuu shaqada ku kordhinayo isagaa samayn jiray laakiin maanta maxay ku noqotay Djibouti inay noqoto inuu wasiirku shaqayn waayo oo amarka laga wada qaato aqal quraata meeshu ma dowladba mise waa qoys quraata anu xasan oo hore u soo sheegay meesha ninkan baa yiraahdo dowladda madaxweynaha jiray war meesha dowlad ma jirto war meesha 1999 kiiba ugu dambeysay dowladnimo waxa haysta nin calooshii shaqaysta oo dalka dan ka lahayn war meeshan sharciga kala dambeyn male war meeshan waxay wax ku baxan ma waxaad aragtay dowlad sheegan waxa soo gasha dowlad sheegan si wax u kala baxeen meeshan dowlad maaha ummadani ayaa xoolahan leh ummadani waa inay ogaato waxa baxaya waxa soo galaya waxba kama oga waxaad arkaysaa sacabku bay tumayaan waxa laga qaaday hebel waa laga qaado in adeerkii baa lagu bedelay yacni waa la yaabaysaa dadkan ummadda reer Djibouti xoolahooga ismaaciil cumar gelle iyo reerkiisu iyo ubadkiisu diyaaradda shidaan ay qaataan ku tagaan meesha ay doonayaan sharci uma leh waa xoolo dadweyne ina la qabto la xiro weey laakiin wuxuu garanayay ismaaciil cumar gelle waqtigu uu wareegaa waqtigiisu man doonaa adiga asiga hadduu wad ku yimaado kuwiisa yaa sharciga ka bixi doonin kuwiisa sharci ka bixi maayaan waayo waxa ay geysteen oo dhan waa laga daba iman doonaa xisaab baa iman doonta xaq baa iman doonta dadkan wuxuu la cunay la dulmay ee gaajada lagu xukumay ee mataqaana shaqo la'aanta lagu xukumay ee mataqaana jaadun loo keenayo waxba ahayn waxba kaga soo qaadaba inay jiraan kaga soo qaadaba kan ka qaadkan ku bedulin weeyaan sagaa xukuma iyo islaantiisa waad arkaysaa inuu Faransiiska waxba ka garanayn maca kuwa la taliya waxay soo qoreen baad arkaysaa inuu waxba kan hore u sheegay Ismaaciil Cumar Geelle waxa lagu oranayaa lix af buu ku hadlaa warnaaga xabashada barar ka shaqeeya 10 af bay ku hadlaan afka suuqa laga bartaa iskool ma baahan afka markaad baranaysid taa kama dhigna cilmi baad leedahay haddaad ku hadlaysid af xabashi af carbeed iyo af faransiis iyo af ingiriis haddaad ku hadlaysid kama dhigna cilmi baad leedahay suuqa laga bartaa waxan oo waxaad baran kartid suuqa waa tii suuqu yaqaana laakiin cilmi iyo karti uu ku maamuli karo dawlad waan ka xumaay Ismaaciil Cumar Geelle male dadka taabacsanna waa dad qabiil ku taabacsan
laakiin ismaaciil cumar dalka uu dalooliyey dalka wuxuu ka dhigay meel jirin waa caasimadda ugu farxon adduunka waa caasimadda ugu gaashada badan adduunka waa adiga arkay dalkeena silic dadku badda isku tuuraan se uga soo baxaan ay nolol u helaan ama walaalkayow laakiin wasiire ma jiraan waa wasiiro calooshadu shaqaysta ah cid ma matalaan waxay matalaan waa house negro waan kuu sheegay waa house negro aad baa umahadsan tahay waan kugu soo noqonaya cabdalle barnaamijkuna waa toos waxaan ku noqonayaa cumar ibraahim waxaa jira dhalinyar aad u yaryar iyo odayaal isku jira ayaa khadka telefoonka ii soo galay oo xasan daaliye la soo xidhiidhay maadaama oo tv-gaad ka hawgeysid bay yidhahdeen odobaraha bulshada mar waliba aad fadhidid adeero iyay yidhahdeen ama dhalinyarti waxay yidhahdeen walaalo dhambaalkaasi tv-ga mari bay yidhahdeen waan marin baan nidhi intii karaankayga magaalada Shaneyle waxa jira waqtigan shalay ilaa daraad iyo toddobaadkan oo dhanba harkii koraanka oo dhan iyo buutooyadii dabka u shiday oo dhan dhulka yaalin waxa uu adeega iyay leeyihiin dhalinyaradii baa buutooyadii ama buutooga koraanka lagu rakibo harkaha lagu xidho dhalinyaradii baa taagaysa oo la cadibneed oo harka ku xidhayso dee dhibaatada videoga ay soo duubeen waxa uu dhawaan arkay marka adeega intaa leeg ay dadka bulshada u baahan tahay gobolka city haddii dadkaasi ay haddii horeyso iyo haddii dambaysaba ummadda haddii adeeg laayihiin sidaad carabka ku dhifatay imikadana ay dadka burbursan yihiin dalka Ethiopia dadkaasi maxay ugu nool yihiin oo uga guuri waayeen haddii nolol dhaqaalaha waddanka Ethiopia qaybista loo qaybinayo nidaamkii koraanka nidaamkii biyaha nidaamkii maxaan ku radaa shaqo abuurkii haddii dadka la siinay maxay u yihiin Ethiopian dadkaasi ay dalka Ethiopia u dhex fadhiyaan halo Umar magaalada Shaneyle ay maalinta qura ee yooma maxay maqashaa hay ku soco ana ma maqlay ku soco marka clear magaalada cashuur baa maalintii laga qaadaa 50,000 ilaa 100,000 baabuurta maraysa ee Djibouti u bixi iyo ka soo bixi iyo jaadka iyo khudradda ayaa lagu cashuuraa Shaneyle cashuurta waa la ururiyaa jigjiga toos loo geeya ama Addis-Ababa qaybta kalena marka waxa weeyaan meesha dadka dulunku haysto ee koraanka haysan ee biyo haysan ee maanta wada fiican lahayn cashuur baana laga qaadaa xoolaha baadiyaha intoo loo soo iibgeey ayaa xitaa xoolaha la cashuuraa marka waxa weeyaan meesha dawladi kama jirto gruub qawleysata oo lacag urursanaya sidaa Djibouti waxaanad ogaataa Ismaaciil Umar Geela lagu kula jira boqolkiiba 80 shacabka gobolka City basaas bay u wada yihiin Ismaaciil ku siyaasiya ku shacaba ku ganacsada gebi wax Ismaaciil hadalaya noo soo sheega laga yaraa inta la ku qaata marka waxa weeyaan dadkani waa dad xataa Djibouti iyo Addis-Ababa harka u wada xidhan Tigray deebale Tigray waa kuwa imka baqile lagu reela leynay Tigray deegi iyo dhulka ku hadhay oo wali shaqeynaya oo noloshii dadka u diidan marka biyalaantan adag koraan kan dhacay koraanka rag baa ka shaqeey warshada koraanka ragga waa rag xamashiya baabuur bay haystaan within 10 minutes ayay Shaneyle iyo dirraba isku jirta ayay ku iman karaan laakiin marka loo telefoon la harkaan lagu dhacay dhibaato jirta imisa lacag bixinaysiin bay ka yiraahdeen 10,000 oo bir 30,000 haddaan nasiinaysiin waan imanayna oo rasho ah marka dib baa haysata dadka talabaad dhalinyarta Ciisa ama Soomaalida ee degan Diridhaba waa inay farsamada gacanta bartaan waa inay iyagu ka ilbaxaan waa inay sida biyaha loo galiyo sida balombarka iyo electriga waa inay iyagu baraan ubadkooda waa waxyaabaha adduunka u qaalisan ee adduunka lagu shaqeeyo farsamada gacantu marka dad dhalinyar way haystaan maanta dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxa electric lama baro maintenance-ka iyo maaragtay biyaha gelinta balombarka lama baro marka inay baraan ayaan ku dardaaraynaa oo ka baxaan ciilkan iyo daranyada ay ku jiraan dawladinaha sugina aad baa umahadsan tahay Cumar Ibraahim kaaga mahadcelinayaa barnaamijkuna waa toos waxaan u noqonayaa Cabdalla Cabdo waxaan ku weydiinayaa marka ugu horeysa oo kolleyba dadku inta badan isoo qoraan amba ay weydiiyaan wixii la oran jiray dalka Djibouti planification xafiiskii planificationka
madaxtooyada ku yaalla xafiiskaasi cabdulla cabdooyo muu shaqeeyaa si xafiiskaasi planificationka ma la baabiyey wax dowlad oo ku shaqa leh planification la yiraaho ma jirto waayo islaanta caaqaya asaga bay dalka ka taliya dadku aniga ku sheeg waa house negro war dal dowlad sharci lahayn procedure lahayn policy lahayn halkeen ku soconnaa 2035 vision 2035 maxay ka dhiganta halkeen ku dadka ku wadnaa halkeen dadkeen doonana aan gaarsiino ka kala yimaadeen ku bedelo halkeen buu ka wadi lahaa meeshan way duntay ka imaada qaanuun buu la kulmaya dal la qaameeyey oo xoolaheega la gurtay oo waxba jirin oo ummadeeda la baabiyey oo baarar loo sameeyey meeshii shad laga cabo loo sameeyey oo la bahdilay planification wax la yiraahaa ma jirto inuu Cumar Gelle ma yaqaan waxa ka dhiganta planification inuu Cumar Gelle maxaan cunaa weeyaan inaan been isku sheegin weligiiba wuxuu ahaa maxaa cunaa maxaa igu jira maanta shirkad handay timaado Djibouti wuxuu leeyahay aniga maxaa igu jira shirkadu way ka carrabaysaa Djibouti shirkado badan baa iman kari lahaa haddii aan dhaadhicno ma garanaysa aan ka dhigno sawirka aan sameeyno oo dalkeena koraanka raqiisano kirada aan ka raqiisano adduunka ay noo yimaadiin annagu waxaan rabnaa haddaan dowladda labaad ka dhawdo dalkan inaan shaqo abuur sameeyno shaqo abuurku waa maxay inaan dadkeena aan lacag siino ummadeena wax bartay say shaqo abuur u sameeyaan ay lacagtu dalka un ku jirto ee naga bixin lacagteena haddaan ka fursan weynana inaan keenno shirkado ajaanib ee dalka inay degaan aan shuruud ku xirno cashuurta inaan ka dayno shaqo abuurka inay badiyaan yaad ka qaadi tax dadkaaga ku shaqeeya sida Mareykanka iyo Canada the biggest taxpayer waa shaqaalaha weeyaan shaqaalaha laga qaadaa anuguna mabsuud baan shaqaan haystaa tax laga qaadaa taxka laga qaado ummadda wax ay taraantoodu yar tahay yaa lagu gargaaraa amba lagu siiya gargaar amba qala lagu kareeyaa si ummaddu wala noolaato si nolol wala helaan war halkan reer quraato qoys baa nolol ku haysta ay ummadda Djibouti ku daawanayaan waxaan maqlay aqalkiisa ku qof baqashkays poolka isinkiis ما تقنا جردان بوليه صدر أفرطنا قبخسين بوليه وحوليه maybe لا بقولوا شاقيدود ورميشو وحولي ومضوا حكوا عياريو وح كرتو واي وح كيرا وح مليه جواي ماشي هو كان دقي قصر بقرطوي وكان دقي ورنيش بقرطوي ماها ومدى الرجل ودقور ما يفهميان ورحولين بس على عياريا وحن كيرا حسنو تأنيقا أدون كلا يا بنتاي لعكتا بيسسكا لقاتو بيجيكو مدعو أقل كيسا لوجو يا حسنو أقل كيسة لوجية كاش أمريكا أنا قدر وكذا عون أمريكا ورقدان قرنا كاش بلوجية فرا لقد جيا بروم بلوجو صاري أمريكا وعيال صار بروم بلوجو صار وأنا كاش بقول كين نقل كان وحوينا لعقتها أنكم وحن كنت لقلني هدي دولار لبار دلتو إنان دتك دنيرك يشومرك لوجو جرجرو مشار لقرو أنت شقابور لاسمانيو أنت دحدنا فورماسيون سوي حاج عمر شيقي بولومبيين برتان قعنت سرعة برتان كوي دبلوم سرتها هاي السنة إني سميان سميناركو سميان كوبنيال جراس زي إكسبيرينس وقاتان الشقا وجود دونتان جيبوتي وماها عالم كسلوكم بيتجريان يونايتد نيشن كاينه كشقاين دتكينو وانا اكسبيرينس كان سينا سيادون كولا جان قادان لكن ني وحا هايستا حوليه يومدي كدر فريستي نيكن انا هراون شي غارديان كما ديتين والله وبالله نيكا غارديان قد كدغنيسين وانين دمير له وانين قول له وانين امد حوليه حدين كان او بدافاي با waxawayaan xoolii soo daro ka yaalay ubadkiisa waa sadoo ka yaalay asiga waa sadoo ka yaalay islaantiisa sadoo ka yeeshay waxay ku leeyihiin aadan cumar sheer waa lacag waxdo ma garanaysa saaxidiisa lagu bixi war meeshan waxay ku tusaysaa meel ciyaal suuq inay tahay seel lacag ku bixi waxa weeyaan sheeg markaan seexo hadee lacagtu badan tahay wallahi oo billahi lacagtu intay badan tahay telefoon baa ii soo dhaca sheega caanka ma seexday I confirm wala confirm gareeya وإيش من دولة ما هي إيش من دولة بانكو هدول العقد بدنا أركو وينو وعقفكي ويراو لا شيء قاس أنا سو جاري ما تقولت هاي مركا حضرتك yes or no هذا تقول على جوجية واي وحجرة limit وحجرة وقفوا سيع كرو أو لقاش كي كرو ولا يراهو ما قرأيسا ده النظام باجرة process باجرة procedure باجرة policy باجرة halkan nidaam ma jiro Ismaaciil Umar Gelle markuu sheebda kabineyga ahaa dadka wuxuu kor jiray taa qabo san samee kani kayal kani eri kan lagu biiri waligi muu jecleen process procedure waxa taa keentay ma taqaana aqoon la'aanta iyo cilmi la'aanta ninkan education male education waxa la yiraahdaa ninka ma dhigo laakiin ninku markuu cilmi barto cilmigiisa ka qabta
ninku hadduu diin haysto diintaa kaa qabata labadiiba male uu ku tumi xoolahaagu qaadan agaamuu dhici aqaluu iska dhistay yacni uma maleynayo qabri inuu sugayaba inuu dhiman doono beritol war wuu isiloobay wuxuu noqday maxaan ku yidhahaa ina ilaahay weydiin xoolaha masaakiintan ee balbala jiifa ee arxibo jiifa ee magaranaysaa Ethiopia City jiifa ee waxba haysan war ilaas dadkiina Ethiopia la gargaari karaa oo wax loo qaban karaa oo shaqo abuur loo sameyn karaa war ninkani male mataqaanaa waxay bani aadam ku naxayo dhan male marka waxay yiraahdeen kaagsan mayaan mar kale aabo aaway shaqadu nii sameynay aaway shaqada kuna shaqay aaway wuxuu nii qabanay oo waxay yiraahdeen ha socon wax ku bedeli kara ma jirto been baad ku sheegaysaa waryaa war cid kasta ku bedeli karta adaa ku dhaqan oo bilaa cilmiya waxa soo qorisid baan arkana warqadaha soo qorisid beentaad ku shaqaysanaysid oo leedahay wasiirka prime minister ay yiri soo waliga wax weydiin jiray yaa wax weydiiyaba ka waxba la weydiiyaba إلى أحمد ديني إلى ونحن سحب لما ودين جري إلى بركة قرط بيجي غادر ماشي رحبة كم هي عيسى دوك حكوت مرة كان معوش هاي مرة دتك ولا ماولين ياون دتك الرجل بوتي وين فهمان نيك هني ويكدم ماتي فيجن ماله بل واحد إكتا واحد دلك هاي سبب ساو غفرس بل غفرس ما بس هالقادم مقعوقة بل غفرس هو ولا كومرسان وددنا يساوي شقيستا ورنيك ولالكي كمان نحيو تولكي كمان نحيو عدة كمان نحيو بني آدم ذي ويكب بحذي سيدانو الدمير كي يسين كرا مركان ساود حمر يجيبوتي عند روبكي يجاجد يكنيف يمال سعدا يسن سيد الدمير كي يسين كرا waxa xoolana soo galay ummadina inaan nolol u sameeynahay nolol inaan sameeyno wallahi billahi bila mashar aan ku shaqeynaya bila mashar uma baahni retirement naga gal America uma baahni mashar waxa iga soconaya dadkayga oo shaqeynaya bilash ku shaqeynaya waxaan doonayaa dadkayga ciziina yeeshaan iyo karaamad inay yeeshaan karaamadii ciziga uu ka qaaday magaalada casran oo ku soo cesho aad baa u mahadsantahay Cabdalla Cabdo kulliba hadalkaaga turxaan buu leeyahay umada ku daawanaysan kulliba way ka faa'iideysanayaan waxa uu noqonayaa Umar Ibrahim uu noqonayaa عمر waxaan ku weydiinayaa baryahan dambe bal gobolka City iyo arrimihiisii iyo halkii xaaladdu socoto dadkii barakacyaashii dhibaatadu ay ku dhacday ilaa maanta banaanka jiifa dabeesha iyo maxaan ku radaa siigada iyo haraad ku laayay maxaa loo qorsheeyay maxaad og tahay oo arintaasi la iskugu yimiday oo loo qabtay ummadaasi mise banaankii bay jiifaan wali waad mahadsantahay xasan arrinta galbeedka dadkii barakacyaashii iyo xasuuqii ciyar baan ka gabi tuulada gabi oo beeraley xoolo dhaqato dowladii cabdiile ka dhigtay oo 300 oo guri laga dhisayna waan ka hadli doonaa ciyar cabdullaahi cabdo inta arrinta Jabuuti gabar baa hameen oo la hadlaysay balbala waxay tii samarkii waxaana dila kulay oo Quraan ma jiro iminka qabowgii baa noo soo galay kaniicana cuntay oo baaba naga dhigtay waa laba la barafate garan karo oo Quraan ay hadii loo fad alcada laga dhalin karaa Jabuuti samarka waa kulul yahay dawlad bay u baahan tahay dad isku tashaday ama kambaniyad barayfada oo solar power iyo biyo iyo wax ka dhaliya Quraanka ma rabaan qowleystada meesha joogto ma rabaan inay Quraankii oo nin jaamac ali geela leeyahay yaa iska yeeshay ka qaybtii Quraanka wadanka kaniicadu waa wax la buufin karo oo adduunyada oo dhan bay ka dhalataa waxaana keena kaniicadana qurunka iyo gidaafada iyo biyo roob yar duudo ee qurunka ayadana waa la barafteen garan karaa baabuur baa lagu buufin karaa adduunyadu lacag bay siisaa waxa ina facility-ga nalka Jabuuti loo jabiyo laga hagaajo ma rabaan lacagta anaga hagaajinayna si ay yiraahdeen Quraanka qolooyinka balambarka iyo biyo gelinta iyo kaniicadan si loo dili laana wasaaradda dhan baa u qaybsan bulshada bay leedahay marka Jabuuti dadkaasi waa dad inay dhintaan oo loogu talagalay maamulka meel joog marka laakiin nolol reer Jabuuti haday rabaan kulli ba dhimanaysiine war xilmuus tago horta isaga gowraca ayaan leeyahay anigu taayta wada yahay ya haday 100 qof mar ku raysraado boolisku imisoo rasaas ku dhifan way soo qaban karaan lugta isagoo inuu alool weyn isagii caruurtiisa noqday durwaaga noqday ee wadanka jimdaya ee qayrinka ku diiranaya intaba inaad iska qabatiin waad karaysiin laakiin ma rabtiin inaad karaay iska difaacdiin ee qortal niga joogi kala kaniica kala kulay iniga isku wacan
isku duuma kana reebele iska dhaafa unity yeesha maalin kula qoorta qabta 100,000 oo qof hadday Jabuuti kacaan maalin kula keedinaysin meesha markaana nidaamka la samaysta ee dawladda cusub aare su'aashaadii waan u soo noqday galbeedka gobolka City waxaa jiray in mar dhexdaaya dadkii xasuuqii Karbaaciise la soo dejiyay meel la yiraahdo maais markii la soo dejiyay la yiri waan ugu celinaynaa dhulkii shirar baa la galay wixii waxba way ka shaqayn weyday magaalooyinkii oo faaruqa ay ragciisii socdeen ay tageen waxay arkeen magaaladii oo dhowr anfar ku jirto kuwii bay ay eriyadeen magaaladii ka saareen way soo noqdeen oo waxay yimaadeen meelihii ay joogeen new booliskii baa raggii ka qabsaday oo yiri sideed u gasheen meesha anagu waan geli war magaalada waa iska faaruqe haddadka dad soo celinaysiin ay yiraahdeen iyo sideed noo tidhaahda waxa kale oo jiray oo qaasha iyo waxgaradka gobolka City inay cagdir madaxweynaha kililka la shireen oo yiraahdeen war si aan dadkan u difaacno noo sameeya ciidan baa la qaaday xogaa ciidan meel birqod leeyahay lagu tababaray ciidankii markii oo tababarkii la tababaray maamulkii oo jeexal weyne yaa ogaaday waa kii bishii hore telefoon loo soo diray tagay markii halkii tageen baa lagu yiri waan ognahay inaad ciidan u qoraysin gobolka City raggaasi annagay tirad nagu yihiin berritoola anfar marka laga takhaluso annagay noo imanayaan kala dareeri agjar iyo qambaarkii oo la socday waxa laga yiri lacag inta rabti ma nisinaynaa raggaa tababaraysin kala dareeriga imika warku igu soo gaaray raggii inoo loo tago leeyahay imsaatiin inta baatiin tiro oo ma wada waliba reesiti un baatiin ha iyo lacag niyaaya waraba nimayna kala dareera agdir marka mashal wala oo qoyaankii odayadii iyo dadkii reer City u leeshiyay war Ismaaciil markii la meesha hada ka masuula adawga soo weeraray adawguna u badan yahay olortiina ciidan sameeyay marka agjar ayaa leenahay dulum baad u horseedaysa dadkaaga ninkii tiisa daryeel ayaa ta kalena waa u tar ninkiisiiba dulmaya ayaa hadal ka soo qoraysa Ismaaciil markii la wada ogtahay inuu hubka siinay afarta inuu dadka dulmay dadkii barakacayaashina sidii bay dhulkii u jiifaan dadkii loo tababaray inay difaacaan la rabana waa kala caydiyay taas waa sida tii gabi dawladii Cabdiile ee Tigreegi biyaha ugu badan baa laga helay meel gabi leeyahay oo hadda gaal dusheeda waa meesha biyaha looga qaaday wadanka Djibouti ee lagu sameeyay 40 ceel intoo la qoday baanbada waaweyn lagu rakibay ay biyaha Ali Sibic iyo Bilbiliya Djibouti kalaan biyihii dadku ka faa'iideysteen laakiin kooraan male telefoonana male 300 oo guri ayaa la dhiso dad la siiyo beeraley xoolo dhaqataan niga dhigayna meesha dawladii Tigreegi iyo dawladii Cabdiile haddaan meesha raggii ka shaqeynay magacoodii yaan wada garanaya raggii way nool yihiin badidoodii kuwa reer City iyo kuwa ogaadeena iyo kuwa qabiil bal kastaba leh gobolka City way wada joogaan lacagtii bilyan tiro koob 300 milyan yaa lagu cunay 300 guri iyo beeraley xoolo dhaqato 10 neef oo ariya loo iibiyay guriyihii la dhisay dhooqa laga dhisay guriyihii dhooqo jaajuul baa xitaa loo quuri waayay bil kadib roob xooga waa kii da'ay markii Cabdiile leeri 300 guriyo dhoobadii ma lahayn sibid dhooba laga dhigay jaajuul oo kala baa qalyar oo qolo yar lagu sameeyay roobkii markuu da'ay dhoobadii way wada qodo way dumeen ana la hadla dadkii waxaan ku sheegay waruna kooraan looma gelinba marka meeshana waa meesha cashuurta ugu badan laga heli lahaa oo beeraleyda 500 beerood oo waaweyn oo khudrad basal nooc kasta laga beero meesha cuntada gobolka City iyo gobolka Soomaalida oo dhan iyo Djibouti waa laga beeri lahaa hadii dawlad u dhib yareysa agafta siisa dadkii lacag siisa guryo fiican u samaysa 10 neef xooloogana beertooda bay ay cunto uga sameyn lahayn calafka xoolaha marka meel kasta dib baa haysta dadkeena Djiboutina lug bay ku leedahay laakiin way ka faa'iideysataa koraanka Ethiopia looga qaado
santarka faamigaygaa ka shaqeeya santarka dabka hadha gaalu ku yaalla ee qaaday geeya jabuuti santarka biyaha jabuuti geeyana hadha gaalu ku yaalla marka dadkaayo biyahoogii iyo resourcekoogii la qaadanaya dowladda etoobiyana way dayacday kani nadalkee dadkiisii dulmana dee ma odhanayo war dadkaa waaba dadkii waa dhulkii aan ku dhasheen ku koraye aabbahayna tareenkii uu ka shaqaynayey soo maraye war nolosha u khafiifiyo koraankana u fura biyahana u fura talabaad kaaga daran ismaaciil cumar geelle awowgii iyo aabbihii iyo isaguba waxay ku soo koreen tareenkii tigree iyo tigree dee tareenkii bay tirtireen nolosha dadka dhulka tuulooyinka furuma adiis to jabuuti tuulooyinka halkaa ee hadday oromo tahay hadday soomaali tahay hadday canfar tahay dadkii waddadaa tareenku maray tareenkaba laga quudanayay lagu safrayey asaga ayaa bilaan u dhigay iyo ninkii dhintay male sanaawi ee halligmay ismaaciil gooruu naga halligmi doono ilaahay baa og laakiin iyagaa tareenkii tirtiray dadkiina noloshoodii baabi'iyey ka safray jabuutiga tareenkaaba ku booday oo beriba uu joogay aadisoba ka dan uga yeeshay beriba uu tegay tareenkiina wuu tirtiray markaa ismaaciil cumar geele ilaahay dadka ka qabto meel u fayow geeska afrika ma jirto waa ka muqdishona qaraxyada ka samaynay waa ka baxon igu soo celi aad baa umahadsan tahay aad baa kaaga mahad celinaya waxaan kugu noqonayaa cabdalla cabdo maasha allah kolleyba waxaan joognaa dadku inay faa'iidaystaan bulshadana waan jecelnahay inay wax wanaagsan naga dhegaystaan haddaan nahay bahda jabuuti toos iyo xasan daaliye cabdalla cabdo waxaan isu taagaynaa waxaa jirtay habeenkii dhaweyd ee jimcihii ee barnaamijka igula jirtay waxaan soo saarnay heestii haddeertoola aan kusoo galnay cusbayd heestaana waxaan ugu talagalnay jawaab bay ahayd hees loo qaaday oo waqtigii maaragtay kampaniga foodkiisa ama maaragtay waqtigii uu doorashadiisa u kaladii baratamayay heese badan oo loo qaaday heestii ugu cuslayd bay ahayd ay dadku qaateen ee adduunka lagu faafiyey heestaasaa jawaabteedii aan dhignayahay meesha oo jawaabteedii bay ahayd marka heestaasi jimcihii bay baxday cabdallo maxay sidee kuugu muuqataa heestii jimcihii baxday adiguba aad tiri war heestaasi lilma iga keentay oo aad waa fikir bay iglisay waa lilma iga keentay heestaasi jabuuti dhexdeeda ma ogtahay inaa basaskii oo dhan dhowr nin oo basaska wata oo heestii ka dhex saaray inaa ardismaayada lagu xidhay arrintaa maxaad ka qabtaa cabdallo waxa weeyaan horta xasanow ninka doqonkii iyo ninka ilaahay ku xirnayn wuxuu ka helaa inaa la buunbuuniyo oo la faaniyo waxaan buu qabtay waxaa la yaab leh xasanow markuu mid hadlayo wuxuu koranayaa fikradda waxaa lahaa aabeen ismaaciil cumar geele gorwarkani fikraduu leeyahay salli cala nabi caleyh war dadkani waxay noqdeen dad jiraba maaha dadkiinu bawaa aabiyo hooyo heestaasi waa dhab asagay ku socotaa waa wuxuu siduu dalka u galay ummaddiisa u laayay war kuwiisii qaraabadiisi buu ninkan laayay dadkiisii buu laayo gaajo iyo harraad iyo shaqalaan ninkani waa nin amxaara weeye shaqa kuma leh soomaalinimadani waxaanan sheegaysay shaqa kuma leh at least in yar buu nixi lahaa dadkiisu ka nixi lahaa waa nin kule ii heesaa war marii nin xamaraawiyaan dhulka noogu yimiday wuxuu yiri waniyo mucaaradnimadan ka baxo oo ninka u heesa lacag buu nisiina waa doqone ka waran ilaahay xamarkii baa kale waa doqone orda u heesa lacag buu nisiin waa la bartay waa la barto ninku markuu ilaahay ku xirnayn uu damiir lahayn uu aqoon lahayn uu ka helo ii heesa ii faaniya ii buunbuuniya maxaa laga buunbuunin waxaa tahay waa lagu garanayaa meeshan uma qalantid shaqadaada maaha aqoonteeda male cilmigeyga male garasho male dadka inuu ka saaro dhoqada ma garanayo anu unbaa cuniyo ubadkayga xageed ka aragtin inay ubadkiisii afar adeer u yahay jufadiisu inay meesha cunaan ummadii kale ka wala gaajoonayaan dee markaa ismaaciil cumarkanaad sheegaysid masaabu ku waari adduunyadu way isbedishaa asagay kusoo dambayn doontaa inaa la xiro uu gabood salijuus ku dhinto u murmuro asaga haddii la gaari waayana kuwii u dhalaa laga daba tagi kuwii jufadiisa laga daba tagi kuwa adeerka hoobaad laga daba tagi layska hari maayo waayo xoolo dadweyne iyuu cunayuu dadkoogii xoolaha lahaa gaajo ku xakumay ku dhimanayaan iyagoo 40 jira 30 jiray jil majnuun galaan maxaa ku qasbi waa wax la'aanta dadkii bay kala furayaan dadkii bay isku dirayaan marka heestani waan ka ooyay waa waxa dalkayga ka socda dalkayga meelaan ku doorsanayo ma jirto handay dalkaygu markaan calanka qaadanay waa 1 milyan dalkeenu wuxuu noqon lahaa waxa sheegaysa Dubai maxay tahay
annaka ka istaraatiijiyeysan meeshaan ku naalno annaka meeshaan ku naalno meel adduunka ku naalno maaha real estate-keyguna meesha ugu qaalisan haddii ay nidaam jirto aan nidaamino waxaad sheegaysaa malyuun inaan quudinee war east africa oo dhan baan quudin kari lahayn ma fahamta xasanow east africa oo dhan baan quudin lahayn dalka waxaan ka samayn lahayn agriculture baan ka samayn lahayn dhulku ka baxayo northka iyo southka agriculture baan ka samayn lahayn dadkeena beeraan siin lahayn lacag maaliyad baan gelin lahayn dadkeena in entrepreneur noqdaan marka heestan waa dhab aniga way iga oysiisay ummadda reer Djibouti-na way wala dhegaysteen dee asaga waxaas way dhibtaa waayo runtuu nacaa runta ma jecel khiyaal buu ku nool yahay asagu wuxuu ku nool yahay adduunka kale ku nool yahay maba arki ummaddiisa ku noosha ina harraad dilay xaaji cumar wuxuu yidhi biyuhuba waayaanba way u soo jeedaan biyaha ku yareeyey biyo saa u socdu ku yareeyey waa loo soo jeedaa mashquul buu ka dhigay saa asaga loogu fiirsan mashquul koran la'aan koraanka inaadeerkii buu u xiray say doonaan bay ka yeereen inaadeerkiina wuxuu sitaa damirlaawo 20 kilmaas ilaa kaniifka ilaa zuuliga markuu galo kilmaaseer baa socday AC dadkiina waxaa dilay xaraare iyo magaranaysa harraad iyo magal kuleel baa dilay war ninkan damiir male goormay reer Djibouti fakarayaan war wax loo dhiman lama helo wax loo dhiman lama helo waa inaan tashanno on si yeelno adduunku sanku ka haystaa laakiin dee ummaddii reer Djibouti hadday kaceen masamada lagaga iman xasanow war wax loo dadaalin ma imanayso waxaad arkaysaa wasaaradaha lagu sheegayo meesha dowlad maaha waa mafia waa dealers waa drug dealers meesha waxaa isugu yimid maaha dowlad cabdallah kuuso in yar kugu daro kowdhe ma ka yar boobayaa raalahawe waxa weeyaan dhalinyarta reer Djibouti doqoma maaha wayna dhegaysanayaan way isbuuxinayaan anu waxaan hubaa yoom min al ayaam maalin maalmaha kamid ah unbaa cabdiileba kol qulaati ku kaceen dhalinyarta reer city barbaarti Djiboutina waar kana anfara kana caraba kana Soomaali iska daaya dulun baan wada haysta maalin qura hoosta iskala xidhiidha maalin qura ka leh inta ma ku biiriga raalo waa sax waad ku joogtaa waxa weeyaan rajwa xaaji cumar waxa taabsatay a good point waxa weeyaan rajwa waxa loo kala horta waxa loo kala saaray Soomaaliya cafartii baa la yiri naga ilaaliya markii dambana Soomaalida waa la socdo la kala saaray markii dambe wuxuu gaaray in la yiraahdo ra'iisul wasaaraha waxaan ka dhigaynaa nin jufada ka qaba awal waxa ahayd inuu Soomaali qabo oo Soomaalidu inuu qabo de waxa ahayd Cabdalla Kaamil Soomaali ahayn prime ministerkii markii hore cafar baa laga dhigayo Axmed Diini waxa waa khatar waana halna ku magaranaysan ku shaqaysano islaan Soomaaliyeed tahay Cabdalla Kaamil baa la keenay waa laga tago waxa ma aaminayno waa inuu jufada inuu ka qabo reerka de waa ka kani meesha joogada jufadu qaba maaha marka waa la kala yiri dadkii waxaan leenahay danihiina garta isku kaalaya sheekaysta war dalkan inikaale war dhalinyar baale ina dalka maamushin inika war anagu waan gabownay warka lug waxa kula jirnaa qabriga waxaan doonaynaa dalka inay maamulaan ee la wareegaan waxbaad soo barateen dad aqoon lahayn baa meel loo dhiibaya waayo ishiga iyagu ina lacagaysan ishireen weeyaan wala retreatay waxa meesha loo dhiibay wala retreatay wadad retreatay aw dhalinyartii lahaa iyaga yiri marka la ku soo noqo war heshiiya war isku biira war ninkan waxba niimaha iyo war ninkan waa cadowgiina war ninkan waa cadow war xoolihiinii ku baashaalay war idantiisii habliisii baa dhulka boobaya war afarta jufaa boobaysa bal waxa ciidamada saa u fiirso waxa haysta nin aqoon leh kuma jiro waxa madaxda ay waxa aqoon leh kuma jiro maxay ku soo biirayaan dalka marka ninkan uma baahno wax ku soo biiray dalka wuxuu u baahan yahay kuwa ay uu amro uu saydoona uu ka yeelo oo difaaca xukunkiisa difaaca kuwa la leeyahay jufadan oo ku shaqaysanayaan masaakiintan oo ku shaqaysanayaan ma maasan oo dhan ma dhireegsano ma maasan imsa gaajoonaysa laakiin afarta u dhow asaga adeera oo adeerka u yahay yaa dalka saydoonaan ka yeeleen ma maasanku waa dadkeena waa dad walaalaheena waxba inta ugu badan ma haystaan iyaguna ma taqaana gunaas kaga taagaan ninkan ummadda ha raacaan waayo waxay dan noogu jirtaa inaan wala noolaano inaan xukunka magaranaysa la sheergareeyo inaan ninkii waxba haysan wax loo qoro la siiyo xaq buu u leeyahay eeg dalkan mas-uuliyad baa naga saaran haddaan waxba haysan inay dowladdeedu xasiiso waa waajib weeyaan xaq baan ku lahay dowladdeedu laakiin cabdooyo haddana halkaan kaa dhex gale waxa weeyaan reerkii mamaasan anagu mamaasan taargad nooma ah laakiin kuwa qurbaha nala jooga intayna raacaan oo qoys ka dhigaan macaarad oo cadhaysayn umbana ragnaa raggii oo goostay oo isagii la fadhiya iyana aaminaade marka waa runta xaaji cumar laakiin kama qancayno ka qanci mayno walaalahayn waanaan ka raana war dalkani waan wala leenahay war dalkani anagu naga wala baaba'aya waxa weeyaan dalkan boqortooyo maaha dadkan waxa maskaxda u geliya anigu handaa socdo waan ilalayn
anugu haddaa joogin shaqa ma helaysiin waa beentii weey ummaddaa ka mid noqonaysiin ummaddu waxay qabto ummad la qabaysin wixiina soo gala dheef ummadda reer Jabuuti cidda doonta noqoto Soomaaliya Cafar Suudaani Carab waxa doonta noqoto waa in la gaarsiiyo dheefta uu helo uu dalkiisa mabsuud ugu noqdo soo dalkaaga u difaaci dalkaaga waxba ku siin sidoo difaaci way Cabdalle mid baa ku oranaya mid baa ku daraya Cabdalle waxa jirta serviska korontada amba idideega Jabuuti electricity Jabuuti jaamac Ali Gelo xukumo dhowr iyo 40 sanadood iyo ku socdaa waddankaasi koronto male wad ogtahay koron bana looga keenay Ethiopia koronka Ethiopia wad ogtahay waa warshadan biyaha ku socota wabiga koronkaana loo keenay haddana ummadda reer Jabuuti ma heshaa xoolihii amba fakatiirtii amba faktuurada ay bixinayeen ma laga naaqus koronka magaalada mu wada gaadhay koronka si fiican ma u shidmaa dalkana maxaa ku dhahdaa koranka hore u jireeyay ee warshadii hore ee Faransiisku ka tagay iyo koranka Ethiopia laga keenay maxaa faraq u dhaxeeyo isbedel maxaa ummadda reer Jabuuti ku soo biiray oo wanaag ay ka qabaan koranka Ethiopia ka yimid iyo korankii hore mucashadii hore amba korankii hore isticmaali jireen maxaa nacam isbedel dhacay oo faa'iido ma ugu jirtaa kan Ethiopia mise koranku waa sidii waxaad markii hore wadiisay planification baad wadiisay planification waxay ka dhigan tahay planification waxay ka dhigan tahay ummadaadu markay badato waa inaad la socotaa oo waxay u baahan yihiin de aad samaysaa waxa weeyaan gaalku markuu naga tagay shirkad qorataan waxaan lahayn warshad qorataan lahayn oo ku taalay Gabood war dadkeeni waxay noqdeen 10 jeer bay laameen maxay planification ka dhigan tahay warshad kale maxaa loo dhisi waayay ka kaalay solarka waxa la bilaabay Xasan Guuleed Ilaahu naxariiso oo jooga maxaa loo joojiyay dadkan loo mar rabo inay ciisi ku noolaadaan lama rabo waxa weyn Ethiopia ka soo qaadanay koran iyo biyo yaa faa'iiday reerkan in Umar Geelon ba ka faa'iiday dadkii intii un bay bixiyaan reerkan ba macaash jeebka gashada waxa weey beesa u beysteen uu koran ka noqdo war dalkan aan ku noolay Mareykan korankaygu markuu u bato 5 kilomaatar wala dhaqaaqan $200 bishii bixiya $200 Mareykan waxa ku noolay oo dadku mushaarafa wala qaataan $200 dadka nolosha waa loo raqiisiyay dadka nolosha waa la jeclaysiiyay hadii kale dawladooda ku banaan baxayaan balaay ka dhacaysa laakiin dadkeeni xaqoogi bay garan laayeen inay doontaan war waxani dawlad male waa waxa lagu ciyaarayo waxa weey dadka inuu visionary noqdo yaa visionary waa wala businessman ninka meesha fariiso u leeyahay war ubadkayga aniga waan lacag samaysto waa inaan Turkiya qala ka iibsado waa inaan Canada qala ka iibsado saan uga baxo dadkan transit bay ku jiraan waa transit waa camp bay ku jiraan waa camp de réfugiés markay meesha ka dhacdayna ka baxaan bay rabaan waxa weeyaan taana ummadda isku wacan ummaddu haday wixii dan u ay ka hadleen cid wax ku qabanaysa ma jirto dadkan meesha jooga mas'uuliin maaha waa burcad waa dad mantaqana traffic wax kasta ku jira oo damiir lahayn waxay sitaan tusbax bay sitaan iska dhigaana tukadaan Allah ka cabsi ma leh Allah ka cabsi leeyihiin Ismaaciil Umar Geleba uma shaqeeyeen waxa oran lahaayeen ninkan waa daalim nin daalima oo magaranaysa oo dadkiisa dulmay lama wa shaqeyn karo sabab shaqeyn kara nin daalima oo xoolii dadweynaha wala wacsaday oo xoolii beeska aqalkiisa ku wala shubtay sabab shaqeyn kara oo ubadkiisa mishaaraad yani qaran mas'uul siiyay iyo mas'uuliyad siiyay reerkiisa iyo dulfadiisa marka waxaasi ummadaas ugu wacan ummaddu wayna toosto wayna hayn wallahi billahi sadajir ku dhimanayaan ciil iyo jaad oo waxa weeyaan waxa loo facilitate wixii drug iyo maraafa war madal muslim ba marka Djibouti makhmaaradaha wana la baabiyo dooda labaad war dad islaana nahay makhmaaradaha wana la baabiyo waa baxaraan lacagta ka soo galaysa dadka muslimiinta mishaar uga dhigtay waa baxaraan way halkan bay Soomaalidu leeyahay ay mashaayixda weydiiyaan war waxa ka shaqeeya meel caynkaas oo maxalaal ba lacagtu maxalaal ba ii tahay way weydiiyaan dadka reejbuta makhmaaradii iyo wax kasta lagu dul furiyo inay baaba'aan uma ogoloba inay wax bartaan adiga arkis tacliim male taxtar male qofka soo noolaan kara waxa weeyaan dawlad labaad oo si degdeg u dhalato ninka waana laga takhluso oo meesha laga eriyado say dawladeena dadkeenu oo doortaan cid ay doonaysan anu waxaan aaminsanahay dawladda inay noqoto dhalinyar inay maamusho adduunka maanta aan joogno dhalinyar baa maamula meesha Xaaji Umar joogo Canada ina kare Trudeau markuu meesha qabtay 40 jir buu ahaa dawladda Canada inta la eegay 7e puissance économique ka adduunku uu maamulay Faransiiska siyaasi laay
وإنا يرى سؤال فرتين جرا ما أنا كان هوك أنا دقوين جبوبو أو فكرينو أو عقل العين أو الزامر كل عاي الزامر ما كل عاي ما بتشنكريان أو وحبا ما كمان كران مركز دل يربرو باناي دل كن هجامية أنكو إن التليفون نقطون ومتقنا أو حير كهينو دد وين وين حير كهيان سندس كل عن كلا جرانسا أرنتا إيجا لكن دل يربرو بهاي دل كان معمولا لو ما بهانو وادي قارك يدل كينه وحلا كانوا وست أفريقيا باكن كاجيو كاجورة سكين أجانب سفارة هذا أركي سووا فيني سفارة واحد أركي وجيني كنت إذا ماله كان القاهرة جوجا قنتولي يعني ولا بدي وحبل عقنتو يعني واحد لو جينيا ونسماعيل فانيو هبين يا درار سام بلوجو جين واي عبد الله أدبا وما ستاي عمر إبراهيم أكو رجيا أنك تشوفنا هديتون قبل أن كلنا هاي ما شاء الله إن عاونا كل بهاد قبل هيا إنك الرالية إن واحد كلهم كوريجيني عمر إبراهيم ما شاء الله وقت يقولون ونخت يقولون ونبدأ عمر واحد كوريجيني واحد ترى دلك إثيوبيا واحد ترى أضيال بدل أو مشاخة ترى وحاجة الدين تكون أحسن أو دليل إني أبا بولان أم ضد كدولهم كانوا هاي إني كهلا هاي سبب تقول على إنه أضو ولا أو أبا يأضو ولا مسؤولة هي أوقاشي قبل كستي الربحان الشيء محاكي ترى اللي هي وحلو ده دعيا محكور هذا يسوع مال بيسكوت جيان وحي بيسكوت جيان ما دركت مال جارة أو سدا دحدو كله أو بالوحي دعي وحي لصوم مري يسدي لو تشلها الربح هو اللي وجرا يا اللي وجرا بالليل وحسب وحبا كورونا مثل الربح مجرا بس هذه بعض ما سنتهاي عبد الله عبدولنا أبو ما تيجي الرمت أيام ما أنت تعبان هنا سدوا يمك الشيء كندا وحويان لبا برلمان بالنا سنة تركة هي هاوس ريبريزنتيف كليان لنا هاوس ريبريزنتيف ورقد اللي يرى فرتجري وكير ويل سوماليا نوجرا سنة تركة وضياش كونتون يسديتن اللي إحنا ندعي سيدا مرين كنا كونغريسكا ويجان دتك هاي وين دستور كيلاليا وهذا المجال هو سوشيالي وكونتوس اللي إنسان سوشيالي وحي إلاليان دستورك دل يردونا أرمها دل يرنبضي ودايو نظام بدوب كرلية إنك أضيدني أيا دل يردو حبوه قولين هو الصوماليا دركيسا صوماليا بدركيسا صوماليا إثيوبيا دركيسا جيبوتي بدركيسا أضيع اسمه عمر جيل سعون كرلا ويل كيس أوير يا فرتجير يا عرورتيس إنه يرادو ورنو أنتو قوي هبل بانو قرتي عددكم هالدورتان أما إنكم بالدورتا أما أنا بكاد دورتي ديوان كتجي إنه يرى لا مولك المقعد هالسوي مركب وحويان أضيعاً وأضيال يجيب وضع السلطة علماء ذا النقطة علماء وحي ضمير لاي وكسو عرر وطنك انت هلقا يكون هذي وهنا يقول هنا يروغان لفا هنا يلروغان هو بيتا اندونا يويان وانا نروف شيء كرين عدالتكو هذي كرين ابا يراتي وحاسي وحقوك كسو انكريا ما صوتو ولا يدلي اما ولا يحدي ايو كورن مركا ترى مد حق شيكتي بقول شيخيان لا dirdaba dadka ba dulman dadkii wala soo barakay guriyooda ba laga qaatay illa seexdaan nobody care hatta waxa la kari waay in culimiyooda Israa'iil dadin war inigu waxba siinine ururada adduunka ee dadka barakacayaasha wasiya noogu sheega at least dadkan inay soo noolaadaan oo sharci loo xiro inta la siiyo dadkii garbaciisi cadayti aqalooy ku kala baasan magaalada dirdaba meel kasta saa u ordayaan gaajo kuleys gabdhay yar oo 10 jira yaa la ishago markay wax cunaan waayeen inay jirkoogii gadaan ay u dhow yihiin oo maalin dhow laga lahaa waxaasi wax eeba weeyaan yaadii maxay ku noolaanaya ninkii arkinay inuu ka faa'iideysto wadoonayaaba marka dadkeeni dulunki inaga ayaa isku wadnaa sida madaxweyne aan leenahay qawleysatada Djibouti ka jirta dad buu naxaa gabdhaha reer baa la gowracayo rag madow oo inantiisa ninkan adoonka inantiisa haysta ayaa Afrikaan badan keenoo yiri war meel dad balahayn
oo gabdho qurqurux badan joogaan iyaan helayna mar shiruu 300 oo sanwaaweyn uu keeno ameenkii gabdhaha yar gurub loogu xereeyaa baa lii marka nolosheenni waa taa hadday shabaab ka kici waayaan hadday culimada ka kici waayaan ilaahay uu weydiinayaa maalinta yowmal qiyaamaha odayaasha iyo culimada inay dulunka ay arkayaan sheegi waayaan weliba nin sheekhaa jira oo Xuseen Cali la yiraahdo oo jufada Ismaal Umar Geela 24 hour xadiis buu akhriyaa wenday dulunka shacabka Djibouti ku socda kama hadlo qisooyinkii nabiga iyo saxaabiga hebel iyo buu akhriyaa Xuseen warugay codkayga Sheekh Xuseen hadda sheekh iska dhigayso oo ilaahay taqaan dulunka wadan buu Djibouti ka jira gabdhaha la abuse gareynayo dhibaatada wadanka Djibouti ka hadal assalaamu calaykum aad baa u mahadsantahay waa kaaga mahad celinayaa barnaamijka soo gabagabeynayno waxaan ku weydiinayaa Cabdalle Cabdo su'aashii aad ugu da'weyneed ee ugu wanaagsaneed waxa weeyaan Cabdalle waxa weeyaan wasiirada Premier Ministerkii maadaragtay dalka Soomaaliya dalka Djibouti tagay master maxaan ku radaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya Soomaaliweynna wadiga og inay Premier Ministerkii isagii maanta ay dhexdhexaad ay yihiin oo dhibaato ay ka dhex socoto dalkii Soomaaliya ay khalkhal ku jirto ay la doonayo dalkii in dib loo galiyo dhibaatooyin fara badan iyo dagaal sokeey waxaasna waxa ka dambeeya ma aragtay dalka Djibouti iyo maamulkiisa in Umar Geele Soomaaliya iyo arinta in Umar Geele mar waliba maxaa isku daray oo isku xidhay waxa weeye xasanow wuxuu xaaji cumar sheegay waa dhabtii waa runtii waxa weeyaan odayga intaa la eegay wuxuu sheegtaa 47 jir uu ka weyn yahay sida runtii uu ka weyn yahay 47 uu ka weyn yahay ma socon karayo marka daa jirin buu iska sheegtaa iyo birthday jirin buu iska sheegtaa ma garanaysaa sigaalada wuxuu ku deysan lahaa veer min nafsan karansadkii buu ku deysan lahaa taa wuxuu yiri waa baadhiyana iga dhiga je sais pas quoi la november machin min nafsan karansad waxa weeyaan xasanow Ismaaciil Umar Geele wala jaqaadi kari waayay saddex madaxtooye ka maragtay East Africa ma waxaad aragtay nin Soomaaliya oo u ahday Kenya walaalihi uga ahday Kenya oo ku haysa dib Soomaalida maanta ninkii uu xal lahaa way walaalihi wana Turkey inuu u ahdo isgarab taago xitaa intuu u xan waayana inuu faraha ka qaaday uu dhaxgali wuxuu yiri Kenya waxba kuma ismin Soomaaliya kuma duulin waxbana kuma qaban Ismaaciil Umar Geele ganacsi buu ku leeyahay Soomaalida hawiyaha iyo ganacsi leeyahay xoolo ku darsaday marka odaygan Farmaajo saan warka ku hayno anigu waxaan aqaanaa dad isla dhigan jiray jaamacadda oo walaalnahay oo deganaa Buffalo New York deganaa ninkan rabta maaha waa nin nadiifa waa nin dadkiisa u soo jeeda waa nin doonaya dalkiisa inuu hagaajiyo waxaad arkaysaa 30 sano Soomaaliya baabaasaneed sida Soomaaliya ku soo dambeysay ninka arkaya marka Ismaaciil wadaama uu Farmaajo doonay inuu la shaqeeyo uu gartay ninkan yahay ninka laaqay Soomaaliya uu corrupt yahay yaa la shaqeyn kara nin burcada nin daalima yaa la shaqeyn kara waa saan ku sheegay daalin lama shaqeyn kartid waxaad u baahantahay nin daacad oo la ka cabsi leh Ismaaciil alla ka cabsi mala haduu alla ka cabsi leeyahay burluqo muulaayeen arxibana amarka ma bixiyeen oo muulaayeen dadkiisa muulaayeen marka alla ka cabsi male waa nin mercenaire waa nin iska shaqo tagay oo ciisaha magaca uu sitaa ciisa maaha magaca iska sitaa magaca ciisanimada dadkiisu ma bagaajoodeen haduu yani ninkani damiir leeyahay xoolaha uu urursaday iyo city ku gargaari lahaa wax biyo iyo iskooli iyo takhtarro ugu sameyn lahaa waxaasa qabrigiisa u raaci lahaa laakiin ma garanayso waxaas isaga waxa shaqadiisa ma marka ninkan ma taqaanaa Prime Minister Soomaaliga waan ku xumahay Farmaajo ninka wuxuu magacaabay ninka marka magacaabisid waxa la eega etikiisa moralkiisa yaa la eega adoo ku xisaabtamay inuu tacliin leeyahay hadda waxa laga ethic moral muxuu ka soo shaqeeyay muxuu soo qabtay muxuu dalka ku biirin karaa waayo inaan qof soo dhigto maaha aniga amarkay qaata waxaan doonayaa nin aniga iga yaraa no saxmadiid sanba ka wanaagsan kaasaan ka jecelahay nin iga yaraa yes Mr yes ma rabo waayo dalku ma hagaagayo dalna meel ma marayo meel la gaari mayno waa inay noqoto meeshu dood inay timaado Prime Ministerku waa inuu ila doodo yaraa sile president saddex bas qonsa fikradda ma ka wanaagsan وانا فكرتها راقو لكن هنداك كان بسرياس ده وحا خلدمايو ما garanayo laakiin anigu waxaan ku darayaa Soomaalida dambu ku qaba
baabi'eeda dab buu ku qabaa xoolaha dhan baa u soo marayay halkaasuu ruugiya xoolaha soomaalida maanta farmaajo wuxuu dhan uu ka waciyey taasuu farmaajo u jeclayn taasuu u diidaya farmaajo waxaan garan waaye waa dinka arkaya hawiyaha jabuuti uu la dejiyey nin daaroodu meel dejiyey uu jabuuti waxa uga sameeyey ma jirto waa wala hawiye uu ku shaqaystaa danihiisu ka dhammaysa laakiin hawiyu ma garanayaan birina uu dhici doonaa birina iyaku dhici doona xooluhu qaadan doonaa in isku aamina maaha si Soomaaliya hore u socotaa baabi'ina mayso Soomaalidu waa dad tashaday waa dad maanta adduunka ku nool waa dad maanta afafka adduunka dhan ku hadla waa dad maanta cilmi leh waa dad maanta dalka uga dhisan kara waayo farmaajo wuxuu u fasaxay dadka Soomaalida iyo abiye wuxuu casuumadeeyay maanta abiye مليون قف أو إثيوبيان دل كوجينا يمادين جاكون لقى السماء جاكون لسيو بلاشة شقينا كالسمايان إن الدجان كانوا يحبون نوع ما وقرا عرض ما كنا هاي نوع ما وقرا ذلك إن تمجيد وحقيقة بديد ما وقرا عندها السقف فاني ويديد بوني ويديد والبيك الشيء ويديد أورنجين عندها أورنين ما كاكسان ما ينا مركلا نقول نقول واحد بديله ما جرتوا دبنت ما كره يندي waxa ku badilay adiga ilma yaro 18 jiro oo high school ka soo baxay ku badili kara aqoonteed leedahay dalka maxaad ku maamushaa maamulkaagu waa sidee maamul balid dastuurkaaga ma ictiraafsanid sharci iyo procedure iyo police loo kala socdo balid wasaaradu isku dara meeshan waa meel ciyaal suuq waa buayu salafuar waxa dalka marka waxa weeyaan xasanow Soomaaliya asaga laaqay ku jira waayo farmaajo uu diiday inuu la shaqeeyo labada kale madaxweyne aad baa u mahadsantiin waa soo gabagabay barnaamijkii Djibouti toos inta baan ku yardaray gaari arinta Soomaaliya ku yardaray arinta ummadda Soomaalida waxbaan uga digay anigu waxbaan arkay maalin dhow waxaan daawanayay nin Masri ah oo arinta ka hadlayay Israa'iil baa ku jirta Mareykan baa ku jira Dubai baa ku jira Imaaraadka Sacuudiga Ethiopia Djibouti Kenya intayo wadan ayaa dawladda farmaajo aanan rabin inay baaba'ada rabaa intayo dhan interest gaar ay leeyihiin mid kasta qaybta imika Ismaaciil Umar Geelle interestgiisu muxuu yahay ganacsi baa u socda hubka iyo mukhaadaraadka maalin dhow laba markab nin Muqdisho jooga ilaalay laba markab oo Djibouti ka timid oo khamri iyo kiniino iyo drug iyo black condom sita ayaa lagu qabtay dikada Muqdisho marka waxa weeyaan Soomaaliyeed codkayga u geeya Soomaaliyeed inagu hawiye daarood iyo wax yar oo gooban ayaa isku haysatiin wadankiina macdanta ku jirta loo fikirayaa inagana inaan dhulka la nagu masaxo dhulkana la qaybiyo qayb Itoobiya la siinaya qayb Kenya la siinaya qaybna Muqdisho oo inta yar hawiya iyo cidla lagu reebi oo shabaab ayaa qarax habeen dhaar ku wadaya bilaanka baa la dhigay wuxuuna ku jira qaybta Puntland ee qaybta Somaliland oil bayal qaybta Kenya Kismaayana oilka badda ku jira waxa soo dhan Ethiopia Kenya ayaa loo kala qaybinaya documentary-ga nin Masri ayaa akhrinaya habeen dhaway wuxuuna yiri dawladaha Carabta Soomaaliya way necab yihiin boqol waa muslim boqolkii 9 wada Quraan xafida Carabtu ma rabto qof muslina oo Quraan xafida oo diinta ilaalinaya Carabtu ma rabto Israa'iil bay la xidhatay siiba raggan boqortooyada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyagu waa boqortooyo qof nool waa kuwa gowracay ogtii ninka journalistka isagoo nool waa kuwa googooy ee mashaar ku jira muxuu sameeyay ninka wuxuu qoray journalka New York Times ayuu ku qoray boqortooyada Sacuudiga cadaalad darrada sameynaysa waa qalad waxa uu qoray intaaba lagu dilay ninkii kolka kuwa Soomaalida aad baa u maasantay Umar aad baa u maasantay kaaga mahadcelinayaa kulli dib baa u kulmi doonaan hawada dib u kulmi doonaa ma sha Allah waan niga mahadcelinayaa Djibouti toos iyo ummaday daawanaysa sawir qaadaha codadka noo soo tubinaya iyo ma aragtay sawirada isagana waxaan aad baa u maasantay iyo shaqaalaha ka howlgala Djibouti toos ayaan salaamayna ayaan xaaji Ismaaciil ayaan iyo kulli wada wala salaamay يا حاج اوكي وماسنتين دمان هودا قولدا aan ku kulmanay caawa hawada ku jirta tooska live ku daawanaysa inta gadaaliga daawadda waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin waan niga mahadcelinayaa anigu xasan daaliye aadna waan ugu faraxsanahay ummadda islaamka meel wala joogana ilaahay uu gargaaro inta dhibaatada haysato inta wanaaga haystana ilaahay wanaaga u kordhiyo dadka reer Djibouti dhibaatada ku jira waqti waliba aan u hadlaynana habeenay dhararka madaaleyno dadkayga waan jecelahay
dhulkeygana waan jeclahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala thank you xasan adiguna waa mahadsantahay cabdillah thank you waa mahadsantahay sayid kolle seedigay kolle naderkay السلام عليكم واتوب ولقيبة واتوب كل شيء توب واتوب ولقيبة واتوب Tuku kama noho tagiara halitilo tukuba miski haista wutu hantupeya Yakisa tuku kama noho tagiara halitilo tukuba miski haista wutu hantupeya Tufka tosaniyo, Korea mama rafi'an. Tosaniyo, Korea mama rafi'an. Aku semua katabiya, urkuti makuliya. Aku semua katabiya, urkuti makuliya. تغير قيامي تخصص في سوى حمود تغير قيامي تخصص في سوى حمود تيبدنا تشيلو Totobatan korodako matana sulo toba iyo kachogmale tirapadan hatuchiro Totobatan korodako matana sulo toba iyo kachogmale Talaba diyo kahadaba tihore kasidaran Talaba diyo kahadaba tihore kasidaran Tubo padegale tulbiada masago say opu mayo kata Tubo padegale tulbiada masago say opu mayo kata Halkaniyo tusaliyo Edu qofkale digay Tusmawda leeyahay turta inuu ku qaatiyo Bilili qukutama Halkaniyo tusaliyo Edu qofkale digay Tusmawda leeyahay tunka inuu ku qaatiyo Bilili qukutama Matashisha matarasade kutalagalay tababutalleeyahay inuu kishar kula tawlo ilelo matatelo Matashisha matarasade kutalagalay tababutalleeyahay inuu kishar kula tawlo ilelo matatelo